kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan waa subax khamiis 19 bisha maarso sanada 2020 arrimahan barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa kamid ah bangiga Yurub oo ku dhawaaqay in dhaqaale badan uu ku bixin doono sidii looga hortagi lahaa dhibaato ku dhacda dhaqaalaha Yurub coronavirus awadi isla coronavirusna Talyaaniga shalay waxay u ahayd maalin murugo hadaba maxaa keenay in tirada dadka cudurkaas uu ku dhacayo dalkaas ay si badato dad badan waxaa jira oo mas'uul ahayn oo ilaa 1 milyan oo qof ayaa la baaray waxa laga naxaa ku dhaada 45 kun kala laga naxay marka dadka qaarkood ma fahmayaan faanta banaanka bay iska aadayaan dadweynaha bay iska aadayaan way iska wareegayaan faanta qaasaan magaalooyinka weyn qaar kamid ah ganacsatada qaadka Mandera oo walaac ka muujiyay go'aanka ay madaxda deegaankaas ganacsigoodii ku mamnuuceen هذا مانطق قاد لقادن دبل مشهدنا دتك قاركيس هل جوجال ده مساكين هل هسوق مية إماد قدرت إلهي بحي وجادس إلهي بحي كمدة نقل ما جوجين كرا الدون وين حدن وعن كعد سنة إن قدرت إن إلهي نقول ولا سفرها نقل قاد madaxweynaha Afrikaana oo si lama filaan u shaaciyay inuu san xilka mar saddexaad u tartamayna wad maqli doontaan waa tahay qodobadaas iyo kuwa kale ay ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Xasan Cali Geelaan iyo Cabdi Ibraahim Cagayrna in la socodsiinaya balse marka hore barnaamijka waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Bashiir Maxamed Cabdi Bashiir ma sanad Cagayr bangiga dhexe midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay barnaamij guntigiis oo degdeg ah kaasi oo laga dagaalanayo saameynta xanuunka corona 820 bilyan oo dollar ayuu bangigu qoonday in dawladaha iyo shirkadaha Yurub ay amaahan karaan gaar ahaan wadamada Talyaaniga iyo Greega oo dalalka ugu badan ee uu saameeyay xanuunka corona barnaamijkan ayaa lagu dhawaaqay 6 maalmood kadib markii bangiga uu daaha ka rogay tallaabooyin guul dareystay oo la doonayay in wax laga qabto saameynta dhaqaale ka dhalatay xanuunkaasi suuqyada saamida caalamka ayaa hoos u dhac laga dareemaya xilli ganacsiga adduunka ay ka walaacsan yihiin saameynta xanuunka corona suuqyada Shanghai iyo Hong Kong ayaa hoos u dhac 3% saac la soo dhaafay soo wariyay halka suuqa kale ee Nikkei ee dalka Japan uu soo wariyay hoos u dhac ganacsi shirkadda duulimaadada caalamka ee caalamiga ee dalka Australia ee Qantas ayaa ku dhawaaqday inay joojinayso dhammaan duulimaadyadii caalamiga ah ee ku tagi jirtay dalalka adduunka marka la gaalo dhamaadka bishan talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii hadal uu ka soo yiri dawladda dalkaasi ay ku sheegtay in loo baahan yahay in la joojiyo duulimaadyada shirkadaasi ay ku tagto wadamada caalamka si looga baaqsado in dalkaasi uu xanuunka uga yimaado dibadda Shiinaha ayaa gudaha dalkaasi ku diiwaan gelinin wax kiis ah oo cudurka corona kadib markii ugu horeysay tan markii xanuunkaasi uu ka dilaacay wadankaasi gaar ahaan magaalada Wuhan dabayaaqadii sanadkii tagay 34 kiis oo cusub ayaa la xaqiijiyay hase yeeshee dadka cudurkaasi laga helay ayaa la sheegay in dalkaasi uga yimaadeen dibadda cilmi baarayaal u dhashay dalka Mareykanka waxay sheegeen hoos u dhac aad u ballaaran oo ku yimid wasaqeynta hawada iyo uumibaxa ka jira qaybo kamid ah caalamka xilli xanuunka corona uu waxyeelay shaqada iyo socdaalka caalamka waxay cilmi baarayaashaas u sheegeen natiijooyinka ay muujinayaan in heerka wasaqeynta ay sii daayaan gawaarida ay aad hoos ugu dhacday 50% ugu dambeynna malaayiin qof oo u dhashay wadanka Brazil ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin ama ay uga careysan yihiin qaabka madaxweynaha wadankaasi Jair Bolsonaro la tacaalayo dhibaatooyinka ka dhashay xanuunka corona dadkan oo isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee wadankaasi ayaa sheegay in aad ugu qanacsaneen qaabka dawladda dalkaasi uu la tacaalayso xaaladda dowladbaxyadan ballaaran ayaa waxay bilowdeen xilli madaxweynaha dalkaasi uu jeedinaya khudbad uu si toos ah uga jeedinaya telefishinka wadankaasi kaasi uu kaga hadlayay sida looga baaqsan karo waxyeelada xanuunkaasi warkii caalamkana waa nageynta aad baad u mahadsan tahay Bashiir Maxamed Cabdi oo kaasi ah oo nala socodsiinayay wararka caalamka halkaad kala socotaana waa BBC dhageystayaal diyaar garooba qabaha kale barnaamijka waa tahay aanu ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen bangiga dhexe ee Yurub ayaa ku dhawaaqay in dhaqaale badan uu ku bixin doono sidii looga hortagi lahaa dhibaato ku dhacda dhaqaalaha Yurub coronavirus awadi dhanka kale wadanka Talyaaniga ayaa shalay waxa uu ahayd waxa wajahay dhibaato weyn kadib markii cudurkaasi coronavirus uu galaabtay nolosha 475 qof taas oo ah tiradii ugu badneed hal maalin cudurkaasi uu dilo tan iyo markii uu ka dilaacay wadanka Shiinaha December-tii la soo dhaafay qaar kamid ah dadka Talyaaniga ayaa la sheegay in ay iska dhigatireen xadidaadaha adag ee lagu soo rogay dhaqdhaqaaqooda taas oo la soo rogay maalmo ka hor hadaba sida uu xaal yahay iyo sababta cudurkan Talyaaniga ugu sii faafayo ayaa waxaan weydiiyay Dr. Fuad Caamir Sarmuun oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka weyn ee magaalada Florence ee wadanka Talyaaniga
بارتنا في حالي وأخبار رنانتي أو جودانا دي لو في شو معناته تقولون وتاريخ ذا كورونا فيروس هاي أفر بقول تدوات شنو فضل بكون إنتان يعني يقول كده تاريخين مدعين حتى مركز جوجا تشاينا هنا تسقف الإنسان هالمالين مركز وحوي ونمبر أدوين رنانتي maxaa loo aanaynayaa tirada dhimashada intaa la eg halka maalina shalay inay waddanka Talyaaniga ku geeriyoodaan وتركي بابتنيو هذيك ستمان كور وحنا هنا شان تومكم هذا حمرنا تدري شان كون قفواد مجرد أيام الله لها يا مركو حواي كلهم ما يودبر لكن سواء أدي بديهن بس عاد كان تركوب كان صوبنا ما عندك عادي طريقة لك صوب بس ودك كلي ما نزل بتاعك كلي مركز دي لسوف تركوب أو حد تان تعمل كله واقعين خاصة قول كان كنا تذكر إن يدك بلاوان التركوب إمبارح هذا مركز طبعا وحوسي بدنا يعني وهي سلوك سويا بقول كي ولا حدا بقول لحدا شان دك مقوان حل على موي لكن عذر كوي قوان وقدر وايو في دينايان وايو عذر كان إلا لو أسبوع وكله جركاده كجري كرا على موي الحين قرد الدور ربطه يسبق وجري هل مربوط بحياة مركز تلوين كان لقاضي وكورتجها فإذا واحد أركضونا ستمان كدهم بلوغ ثلاثة أربعة الصف إلى هذا كرسي مركز بعد أركضونا عدي تلوين كان شقيين dowladda Talyaaniga waa tay laba toddobaad ka hor ku dhawaaqday in cidna aanay guryahooda ka soo bixi karin oo dadkii la xayiray isu imaatikii la joojiyay sidee ku dhacaysaa marka in dad tiro badan ay cudurka sii qaadaan dad badan waxaa jira oo mas'uul ahayn oo ilaa hal milyan oo qof ayaa la baaray waxa laga ganaxay ku dhawaada 45 kun kala la ganaxay marka dadka qaarkood ma fahmayaan faanta banaanka bay iska aadayaan dadweynaha bay iska aadayaan way iska wareegayaan faanta qaasan magaalooyinka weyn marka hadda waxa la keenay ciidamada xoogga la keenay Talyaaniga keenay iyo problem waxa way magaalooyinka weyn Milan iyo Rome treenada shaqeynayaan iyo transportation iyo metroga marka waa dhibaato metroga shaqeyn dad badan baa isku imaanayaan cudurku fitaa markaas dadkaas dhimanaya maxay yihiin ahaan horta dadka runaaantii dadka dhimanaya badankood waxaa dad waayeel saaksoon Talyaaniga wadanka ugu badan dad waayeelka garan anaga Soomaaliya 60 jir waayeel baan dhahnaa halkan 60 jir bay dhahan waayeel marka Talyaaniga wadanka adduunka waxa ugu waayeel badan talamaad qof kala dhimanaya waa qofka qaba cudurro kale wadnaha sambabaha sokor hypertension wadad oo la dhahay fragile waxa dad delicate waa cudurka ayuu ka qaday laakiin hadda waxa soo baxayaan boqolkiiba 10 kale dad oo young ah asan dhaqaatiir nurse dad dhalinyaro oo banaanka soo wareegeen cudurka qaadeen Ditore ma la arkay marka qof inta cudurkan uu ku dhacay oo isbitaalada la keenay laga dabiibay la diray intuu raystay kadib la soo celiyay isagoo cudurkii qaba hadana wallahi hadda patient 1 oo laga helay Lombardia gobolka Milan oo negative noqday oo gurigiis aaday soo noqday hadda waxa way marka cudurka soo noqday waa taraashka ku qornaa oo shaqada mandara oo lagu soo celshay marka cudurka ku soo noqday marka taas aad baan intaan ka naxnay fariis aad baa looga dooday qof haduu oo ku dhaco cudurkan wuxuu yeelanaa difaac antibodies buu yeelanaya mar hadda antibodies qabto sharciyan adiga wax weynaad waa ka talanaanta laakiin waxaa la arkay China qaasan boqolkiiba 14 qof inuu cudurku soo noqday fariinta aad baa laga dooday laakiin runtii proof baa haysanaa dhakhtar oo nin oo maxaa la first person oo ku dhaco cudurkan oo ka reestay oo banaanka aaday oo fiicnaaday oo negative noqday cudurka ku dhac waa la baari oo ku soo noqday marka taas waa muujisanayo laakiin shalay lak waxay maalinta ugu dadka reestay oo ugu badanaya kun boqol qof baa reestay taas waa calaamad fiican kaasi waxa uu ahaa Dr. Fuad Caamir Sarmuun oo khadka taleefanka ee waddanka Talyaaniga ugu waramayay isla Yurub aynu joogna ee dhanka kale waxayna korodhay tirada dadka oo cudurkaasi ku dilay iyo kuwa uu ku soo ritay gudaha waddanka UK arintaasna waxa ay keentay in xukuumadda dalkaas ay qaado tallaabo adag oo ay ku xirayso iskuulada si cudurkaasi loo xakameeyo iskuulada ayaa waxa la xirayaa maalinta Jimcaha ee Baritaa si loo dhowro in cudurkan uusan gaarin caruurta daada yar ee cudurkan u nugul sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha waddankaasi UK Boris Johnson hadaba sida uu xal yahay iskuuladan la xirayo iyo waliba sida ganacsiga dalkaas uu saameyn doono arintaas ayaa waxaan ka wareystay wariyahayaga magaalada London Mawlid Xaaji Cabdi cabdi fatax waxa ugu dambeeya waxay tahay in dhimashadu xalay ay gaartay 104 qof taasoo macnaheedu ay tahay in 33 qof shalay oo Arbaca ay kaliya u dhinteen cudurka waxa kale oo jirta marka in sidoo kale sare u kacday shalay ilaa xalay dadka cudurka uu ku dhacay waxayna gaartay 2626 qof halkii ay ka ahayd talaadadii 1950 macnaheedu marka waxa weeye in ku dhow 600 oo qof inay qaadeen hal maalin oo kaliya cudurka waxaana markaas jirtay in la baaray 56200 oo qof in ka badan 53000 in gaareysana laga waayay oo marka ay noqotay negative inaysan waxba qabin marka waxa moodaa saameyntu inay aad iyo aad u kordhayso Cabdi Fatax maadaama saameyntu aad u korortay dawladana tallaabooyin cusub bay soo saartay oo watan ra'iisul wasaaraha uu sheegay in
iskuuladii la xirayo iyo goobihii waxbarashada marka arrintaa bal ka waranayana arrintan waxaa la leeyahay way soo daahday waxay ahayd dowladdu inay mar horeba arrintan ay qaado laakiin ugu dambayn wasiirka waxbarashada iyo ra-iisul wasaaruhuba go'aankaasi waxay ku dhawaaqeen shalay gelinkii dambe waxayna sheegeen in maalinta jimcada ay noqon doonto maalinta ugu dambaysa waxbarashada in la joojinayo laakiin waxaa jirta in arbacadii goor kasii horreysay intii uusan shirka jaraa'id qaban ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa maamulada Scotland iyo Wales waxay ku dhawaaqeen ayagu inay xireenba goor horeba marka waxaa jirtay arrintani inay si weyn dood uga dhalisay oo lalahaa maxaa intaa loola sugayaa oo aysan dowladda talaabadan marar u qaadin marka hadda waxaa moodaa in qatartii ay soo badanayso haddii go'aankaasi u dhacayna waxaad moodaa in tallaabooyin kale ay xigi karaan laakiin hadda go'aankani waxaa moodaa in aad loo soo dhaweeyay hadda mar haddii iskuuladii iyo jaamacadihii iyo goobihii la xirayo dhinaca kale bal ganacsiga iyo dukaamaysiga siduu cudurkan u saameeyey aad buu u saameeyey cabdi fataax markaad aragto magaalada dukaamada waaweynaa oo kale aadka loogu dukaamaysto dadku meeshii ay dhici jirta inay saf geli jirin oo ay caadi u adeegan jireen hadda iminka markaad ag marayso dukaanka ama aad doonaysa in wax ka gadato waxaad arkaysaa safaf dhaadheer dadkii oo ku jira meesha markii la furana mararka qaarkood dadku inay gasgarbinayaan oo waxyaalaha nadaafadda siiba aad loogu dagaalamayo oo laisku qabsanayo mararka qaarkood arkaysaa dukaamada waaweyn oo kale qaarkood waxay soo saareen go'aamo ay ku xadidayaan heerka ama qofku wuxuu gadan karo tusaale ahaan oo kale anuu shalay maraan dabcan inaan kasoo adeegtay dukaan iigu dhow waxaa la ii sheegay inaan qaadan karo oo keliya 3 kilo oo baasta oo aad qaadan kari intaad doonto shirkadaha qaarkood oo cuntada soo saara waxay sheegeen inaysan dhibaato ka qabin in cuntadan ay dhacdo laakiin waxay leeyihiin habka dadku wax u gadanayaan mararka qaarkood waa laga fiican yahay in dadku sidaas wax u gataan waxay leeyihiin ma fiicna in cabsi ahaan qofku wax walba iska soo gato cunto ku filan wadanka way taalaa bay leeyihiin waxaa loo baahan yahay si miyir iyo caqli ku jiro in loo dukaamaysto tallaabada xigta ee la qaadaya maxay tahay cabdi fataax wax walba ayaa la filan karaa tusaale ahaan ra-iisul wasaaraha shalay shirka jaraa'id uu ku qabtay Downing Street su'aal la weydiiyey waxay ahayd ma dhici kartaa in wadanka la geliyo xanibaad ama xayiraad sida ka dhacday wadamo badan oo cudurku u saameeyay oo ay ugu dhow yihiin wadamadan UK aadka ugu dhow ee Faransiiska ama Jarmalka ama Spain oo kale wuxuu sheegay in arrintaas ay ka fakarayaan laakiin London ay tahay meesha xudunta u ah hadda UK marka la fiirsho faafitaanka iyo dhibaatada cudurka wuxuu yiri meesha kama saari doono in London lagu soo rogo xanibaad marka waa wax furan waa wax imaan kara laakiin goor horeba iminka shirkadu waxay bilaabeen in dadku guryaha ka soo shaqeeyaan oo xitaa BBC sidoo kale ka mid ah in dadkii loo ogolaaday dadka qaarkood in guryaha ka soo shaqeeyaan laakiin shirkado badan ayaa dadku guryaha ka shaqeynayaan basaskii iyo tareenadii iyo goobaha dadku socdaan iyo wadooyinkiina waxaad moodaa inay ku sii yaraanayaan inkastoo laakiin ganacsiga walba ay socdaan si caadi ah laakiin haddana walwal badan ugu jira dowladuna tallaabooyin dheeraad oo qorsheysan tusaale ahaan in ciidan badan lasoo bixiyo in la soo rogo amaro dadka lagu xadidayo haddii go'aanka uu soo baxo marka wax walba iminka waxay u socdaan sidii loogu talagalay kaasi waxa uu ahaa Mawlid Xaaji Cabdi wariyahayaga magaalada London oo khadka taleefanka igu waramayay bal markana aan fursadda siiya qaar kamid ah dhageystayaasha Facebook-ga oo warbixinadaasi ra'yigooda kaga soo dhiibtay Maxamed Axmed Bulaale oo ka soo qoray Taleex waxa uu leeyahay Talyaaniga in ay shalay maalin murugo u ahaato waa arin dhibaatadeeda leh maadaama cudurkaasi coronavirus uu ku sii bato waana fashil ay ku fashilmeen buu yiri in wadamadii tunka weynaa ee dunida ay keeni weeyaan daawo iyo waliba inay wax ka qabtaan Allah oo kaliya ayaana dawadaasi haya oo wax ka qaban kara waana in quraanka iyo baryada alle aynu isku wada daynaa maxamuud warsame oo ka soo qoray gabilayna waxa uu leeyahay dhawaaqa bariga bangiga dhawaaqa ka soo baxo yiri bangiga Yurub ee ku aadan in dhaqaale badan uu ku bixin doono sidii looga hortagi lahaa dhibaato ka dhacda Yurub dhaqaalaheeda coronavirus awadii waxa uu leeyahay waxa uu badbaadinayaa hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha Yurub Afrikaankana waxaa la gudboon in ay isku tashadaan waxaan qaar kamid ah dhageystayaasha BBC ee Facebook coronavirus dunidii buu qabsaday barnaamijkeena qaybaha badan isagaanu ku eegaynaa waxyaabaha kale inoo soo socdana waxaa kamid ah corona maxaad ahayd ma kibiley baa ku dhashay ma wuuhaan baad ka timid maxaa kaligaa ku wada maxaa kadin kasta ku dhigay maxaad noo kadeediyo nolosha koob oogu ridi
waa abwaan soomaaliyeed oo gabaygaasi ka tiriyey balse isla coronavirus dhibaatada ka dhalatay tan iyo markii cudurkaasi cabsida laga qaba ee kordhay ayaa dalkani Kenya waxaa la joojiyey qaybo ka mid ah deegaanada qaar qaadkii tegi jiray gaar ahaan gobolka waqooyi bari kadib markii awaamir ay soo saareen maamulada deegaanadaas. haddaba shalay wax qaada lama geyn magaalada Mandera, arrintaasna waxaa walaac ka muujiyey qaar ka mid ah dadka qaadka ka ganacsada. qaar ka mid a dadkaas iyo kuwa weliba cuna ayaa inoo waramay oo waxaanu weydiinay sida tallaabadaasi qaadka lagu mamnuucay ay u saamaysay. bismillahi raxmaan raxiim. anigoo ah maxamed cabdow oo gudoomiyaha suuqa qaadka ah. wararkana soo gaaray oo leeyahay qaada la joojina waxaan ka codsanayna al roba in uu culayskaas naga dejiyo. maxaa yeelay basasa nairobi ka soo bixahay, Mandera imaanahayaan, Mandera ka bixayaan, nairobi aadahayaan. annaga qaadka naga keliya maxaa ka soo uray. marka fadlan naga qaado culayskaas, meesha ilmaha aan ku biilinayni waaye. annaga waxaan leenahay jaal ma joojinayna. maalinkaas hanala qabta aan qasaarna, hanala qabta aan qasaarna. habeen iyo maalin waa soo rarayna, waa keenaynaa. horta cudur ilaah baa keena, ilaahana bixiye. annaga waxaan aaminsanahay ilaah annaga iyo kitaabkana qur-aankana aaminsanahay. waa qur-aan akhrisanaynaa, masaajidda laga quluudahayaa, wax kasta la samaynaa oo xag habeenka ilaahay baryaynaa, ilaa 8 saac ilaahay baryaynaa, ilaa sala suucan ilaahay baryaynaa. ilaahay maba noo keenay, cudur maba noo keenay. meel qof muslim u joogo oo daacadan ilaahay maba keenay. magacayga ani ambi axmed cugaali dhaha. qaadka la jooji waxaa waaye dadweynaha Mandera hal ha suuqo. annaga geeli eri kala ma qabno, agoomaan leenahay, rajooyinaan leenahay, waayeelaan leenahay. waxaan ka ganacsanayna waa qaad. haddaan maanta qaad la qaadanin dab lama shidanayo dadka qaarkiis. hal la joojiyaal dheh masaakiin hal ha suuqo miya imaad. qudaartaas ilaahay bixi oo geediis ilaahay bixi ka mid ah nagalama joojin karo inaan ku ganacsano xaqan u leenahay. inay nin annaga aan doorni kuraadayna as nagu dilo gar ilaahay maaha. adduun weynaha dhan waxaan ka codsanaynaa in qudaartayna as ilaahay nagu noolayso faraha noogala qaado. cudurka ilaahay keeni kara, ilaahay aana qaadi kara. dad islaam aanan wixii ilaahay noo qara nagu dhaca ma ogi cudur as dad sheega naguma dhacaaye tafadaalisaana aadna ninka biriiska haysta aadna rabshin banaanka naga mara. magacaygu waa Abuukar Cabdi Cilmi. waxaan rabnaa qaadka in Mandera nagala joojiyo maadaama dhib fara badan uu noo keenayo oo ka mid tahay cudurrada faraha badan oo ka mid tahay coronavirus. waxaan rabnaa qaad in cudurro badanaas keena qaadka mar waxaan rabnaa in dowladda ay naga joojiso qaadka Mandera. dhib weynaas nagu haya sidiisaba cimri forever qaad ha nagala joojiyo. aniga ruqya cali cabdi aalidha qaadka waa lagu noolyahay ogow. hadda ani meeshaan bargas 5 jawaanan keen ummad unaan u qayb wax gidigaas u kaca aha, wax Soomaali la aada aha, wax Mandera dhexdeeda aha, dad unaan u qayb. marka qaadka ummad badana horta waxaan cudurka sida la sheega neeftaaba laga qaadaa leeyahay, salaanta laga qaadaa leeyahay. ilaahay subxaana qaadirkaay baan hoos galeynaa ummadda nabi maxamed hadaana nadaafadana waa ilaalinaynaa. dawladda haday dhado si walbaba qaadka inaan joojinaan rabnaana hadana waa arkaynaa. magacaygu waxa la dhahaa Ruqay Haajir. Kenya horta waa Kenya, basaskiya socdo, gawaaradiya socdo, looriyaalkiya socdo, wax walba socdo, waa la isu socdaa. oo hadda Kenya ma la kala xirin oo ma karantiilna. meesha hadda qaadka aad ka soo baxaya cudurku lagu sheego soo gaarina lama maadaama Kenya socdaalka dhanaad isu socdo oo gawaaridi iyo wax walba ay socdaan oo hadda wixii Kenya ka imaadayo dhan hal istaaji basaska hal istaaji socdaalka hal istaaji Mandera hal karantiila ana la dhihin. ani waxa oo qaad loo hadda istaajina ma arka oo hadiiba aanan qaadkan horta ummada ku nool, masaakiina ku nool, dad wax magarata ku nool, agooma ku nool. maanta hadii la istaaji dad badan oo maxanaha oo dhibana aha soo bixid maadaama aan wadanka la karantiilin oo basaskii wixii dhamaale Kenya ay isu socoto. Kenya dhexdeeda gudaheeda waxa laga istaaji aniga hadda wax saas u maar. waxay ahayn qaar ka mid a dadka magaalada Mandera ee qaadka kuwa cuna ama kuwa ka ganacsadaba oo inooga waramayay sida ay u arkaan mamnuucidii dhowaantan qaadka magaalada tagi jiray uu kusoo rogay barasaabka deegaankaasi. haddaba bal aan fursadda siiya qof ka mid a dhegeystayaasheena ra'yigiisa halkaasi Facebook kaga soo dhiibtay Cabdullaahi Jaamac Ogle Bulshaawi oo ka soo qoray magaalada Burco. wuxuu leeyahay ganacsada qaadka ee Mandera ee walaaca ka muujisay go'aankaasi madaxda deegaankaasi ay ku mamnuuceen qaadka halkaasi tagi jiray. runtii walaaceeda ay leedahay. waxaanse leeyahay dintiina caafimaad ayuunbaa lagu talinayaa marka waqtigaasi kooban iska dulqaata. waa tahay markaanse bal war ka duwan wararka coronavirus, madaxweynaha wadanka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa waxa uu ka yaabiyey dad badan oo kuwa dhaleeceynaya ah kadib markii ku dhawaaqay in uusan muddo xileedkii saddexaad uusan xilkaasi madaxtinimada u tartamayn dalkaas. arrintaasi waxay cadaadis ku noqotay qaar ka mid a madaxda deegaankaasi ee galbeedka Afrika kuwaas oo laga doonaya haatan in ay isaga ku daysadaan. haddaba faafahinta warkan waxaa soo akhriya Xasan Cali Geelle oo studio igala soo biiray. Xasan cabdi fataax waxay noqotay arrin dad badan ka yaabisay gaar ahaanna siyaasiyiinta qaaradda Afrika
dhaqan ahaan waxaa lagu yaqaana qofka markuu madax noqdo in muddo dheer oo xilka isaga dheganaado oo ama kacdoon dadweyne ama looga qaado xilka xoog looga qaado laakiin tan sheekadu way ka duwan tahay weliba ninkan sharcigii buu bedelay sharciga ayuu bedelay waxaa la filayay in mar saddexaad uu tartami doono muran ayaana ka maadaama sharcigu bedelay maadaama uu sharciga bedelo sharcigu u ogolaanayo laakiin sida la moodayay sheekadii ma aysan noqon waxa uu yidhi anigoo ma tartamayo sheekadani sheeko Afrika ku cusub maaha si haddii loo fiiriyo waxaana la dhihi karaa oo keliya waxaa loo qaadanayaa marka ay doorashada dhacdo bisha Oktoobar sanadkan dalkaasi waayo waxaad og tahay Suudaan oo kale Cumar al-Bashir haatan ka hor ilaa 2 jeer ayuu waxa uu sheegay inuusan tartami doonin markii dambana wuu tartamay weli waxa jira leedahay marka dad badan oo leh dad badan dib u sirgay laakiin arrintan waxaa soo dhaweeyay mucaaradka dalkaasi Ivory Coast waxaana jirta xitaa baaq ka soo baxay wadamada dariska sida Guinea oo madaxweyne Alpha Conde la leeyahay waa inaad ku dayataa dimuqraadiyadda dhaqankan cusub ee hadda ka bilowday dhanka iyo dalka Ivory Coast oo shakada laakiin marka la fiiriyo Afrika la yiraahdo dad baa kaga libaaxsanaya arrinta mar hore ugu sii horeeyay Mandela ayaa ka mid ah hal mar kaliya markuu madaxweyne noqday waa kii ka tagay madaxweyne dhawaan dhintay Kenya Daniel Arap Moi 24 sano markuu wadanka xukumayay isagoo weli awood u leh inuu mar kale tartamo ayaa si lama filaan waxa uu sheegay inuusan tartamaynin dad badan ay ka yaabisay inkastoo isla qabsi siyaasadeed oo dambe oo markii dambe ka dhashay alla samantira marka waxa laga warsugaya sida uga dhabeeyo iyo in arrinta mar kale ay suurto gasho ay noqoto mid dhab ah waa tahay aad baad u mahadsantahay xasan cali geela ayuu kaasi faahfaahinta warkaasi inala socodsiinayay bal markana aan siiyo fursadda qaar ka mid dhegeystayaasheena facebooka xamde muuse saalax oo ka soo qortay badhan waxay leedahay madaxweynahaas afrikaanka ah ee ku dhawaaqay in uusan mar saddexaad xilka u tartami doonin waa tallaabo wanaagsan tusaalena u noqonaysa madaxda u haysata xilka mar haddii ay qabtaan in ay dhaxal u heleen waa tahay cabdisalaan ismaaciil oo bered xaw ka soo qorayn waxuu leeyahay madaxweynaha afrikaanka ee shaaciyey inuusan mar saddexaad u tartamayn xilka runtii waxa ay meesha ka saaraysaa arrinkii xanta ahaa ee afrikaanka